بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا رضي نفسه توكتي وانا سلامي سلامة السلام قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انتنو وعناتو صعدين وعناتو قوب كستي وقور كستي توكتين بقى خيري نمع إله كوارا بإذن الله تعالى. ولاش نمعوي من رباط يقصع عصب إن شاء الله تعالى. رجينا إنك فايدي سنو بإذن الله تعالى ونك في عنا كأجنو أدونك وعظة وعبرويا نوحنا والأركا وحسنا والأركا وحويا إن متقنا قفكي كفايديستو وعدد عبرده كسوغان وكلا فايديستو وسوغان متقناي واد إلا رجو إيغو وإله سبحانه وتعالى وحنا كما قنقل وحنا كسرنا متقنا كل يرتو سوغان وفرقاس وكلا يوحلا ميدو كلا وناكسن سمايو إلهي كبر الناس سبحان الله غلا إلو بين ورالايا لو شاركة إيو متقنا سبسكرايب إن شاء الله تعالى سلسي خير سلسي وداقة ولا سيفيديا laga yaabaa waxaad adigu hore taqaanay dad walaalka u gudbisay hore uu qorin wax ku amal falaaji iska leedahay adiguna ama khalad ku jiro ka soo waantoobo ama wanaag ku jiro ku sii wado insha Allah marka qasad hadaan wada galo waxay ku saabsan tahay sheekh Saudi ayaan ka dhageystay waxa weeyaan sheekh Abdul Asa wuxuu sheekhu wuxuu ka sheekeynaa tabarri waalideen fadliga barri waalidiinta iyo wanaagooda laga sheekeynay qasad ku saabsan tahay marka maadaama bir waalidin laga sheekeeyo dadku inta badan dee waalidka waa loo ixsaan sameeyaa oo wanaag iyo khayr ba lagu dhaqmaa waa in wada naqaana inkastoo ay jiraan mujtamacaad fara badan oo meelka caalamka ba xumaanta mataqaan waalidka kula dhaqmaan way jiraan waalid caaq badan way jiraan waalid caas badan way jiraan mataqaan waalidkood ku caaqo ku xun qaar xoolahoodii dhacay qaar guryaha ka eriyay iyo qaar mataqaanaaye dib soo xidhiidhin waayay qaar mataqaanaa dee gacan u la tigay xitaa way jiraan walciyaadu billaah ilaaha kama galana marka qisadan waxay ku saabsan tahay si kale qaab kale iyo nooc kale waxay tahay wuxuu yiri doctorad Sacuudiyada ayaa u soo sheegtay sheekha waxay tiri doctorad waxay tiri nin baa ay soo galay maxamed la yiraahdo ayaa matqanaayay ciyaadada ama clinic ama goobtii dadka ku dabiibisay ugu soo galay ninkaas oo 30 jir da'diisu ay tahay wuxuu waday gabadh buu matqanaayay soo hab ugu dhagsanaayo hayuu soo waday marka qofka dumar wada oo gacanta ku soo aad ugu dhabsiyo haystaana way iska riixaysaa way xaganaysaa xanuunfa ku tuftufaysaa isaguna uu qoslaya oo dhool cadeynaya markay soo galeen caynka qolka gudiga soo galeen waxay tuurtay xijaabkeedii iyo matqana khimaarkii marxabadii ku xirnayd madaxay ku xirnayd bay qofka dumar ahayd ay tuurtay kaasay meeshii maqsinka ku carcarto ku ciyaarto si waxaan taqaan ilmo yar carro kale kaasay in doctoradii yaabtay ninkii inankii dhalinyartaabay kor soo egtay waxay ku tiri waa ayatani kaasuu waa hooyadii kaas ku tii oo maxaa helay wuxuu la yaabtay gabadhii ruuxan weyn ee matqaan saaw carrasay action ka tasarrufaad ka sameynaysa wuxuu ku yiri waxay ku dhalatay bilaa aqli u fiirsada walaaladii hooyadii bilaa aqli yani waa aqliba ma leh ma aqal carreed yani ilaahay subhanahu wa ta'ala takliifka laga qaado qof waalan kaasay yaabtay doctor xataa hadda sidee ku dhashay yani waxa fuduul iyo matqaan bani aadam uu isweydiinaysa mogtahay hadda si ku dhashay waxay ku yiri inankii waxa ay awowgay ayaa u guuriyay aabahay ay u guuriyo markuu u guuriyayna wuxuu islaha waantaas ilaahay ilma ka reeba dad badan horta tafkiirka qaba qofkooda matqaan waxay istirahdaan matqaanayay in billahi qof ka reeba iyo matqaanayay maxaan ku rahdayay bilow qofkaasi hagaagayo ma uu caafimaada iyo waxbay dadka fikiraan Allah yaclam qofkii de dadka qaarna waxa laga yaabaa qofkii caafimaadka qaba matqaan qofkan uu isbooda matqaan dib iyo faraha cagaha loola galiyo mar hadda khayr bay ka filayaan laakiin haddana dibta waa iska jirtaa mar kastaba qadarta ilaahayna bal hoos yaala ala kulli xaal wuxuu leeyahay inaan ka sheegay sidaan noqono aabahay buu guuriyay marka sanadkii horeysayba aabahay uu furay waa qof waalan uu marka dad arkay in maskaxda jooginba marka ayna subxaanallah ilaahu wuxuu qadaray in marka aniga uurkayga qaaday marka ala kulli buu marka min 10 jir ah da'deedu marka 10 jir ahaydba ana hooyaday u khidmadeynayay aniga wuxuu karinayay ana u nadiifinayay ana waxaan xitaa seexdaa wiil goorta xitaa seexanayo xarig baan lugteeda ku xiraa si aynan u baxsan intaan hurdo subxaanallah yani uu walwalayo u baqanay hooyadii buu u baqanay inay matqaanayay iska dhaqaaqdo inuu qofka aqal soo cabinay matqaan iska baxsan iska dhaqdo dabada guriga uga baxaso ka xarig buu lugtiisa isku xiray subxaanallah intaas uu hadlayo islaantu way hadlaysaa way qeynaysaa hooyadii waxay leedahay si baradho waa chipski ama maxaan ka crispiski ciyaarka cunayeen oo kale uu siiyaa kaasi ku tufta cunufta kaasuu iska masaxo qasla kaasi doctor diyaartay hooyadaadani miyaynan ku garanayn kaasuu ilaahay ma garanaysaa
ما قرنسي إن كذي إن باي ما قرنسي لكن إن إلهي بقرنيه إن كذي إلهي يجي أين أبوري أيا قرنيه إن حكوا إن كذي سبحان الله قاسس لان تحكوا هذا يا ولد إن كيجيو بين باشكت بين على تاي صوم حد يجين ويدي ما كم حد يجين ويدي بيكوتشري سلانت بارنس markaasuu imikaday kaxay kaasi hooyo sooni kuu sheega ku yiri khamiistan ku geynaya hadda islaanta waa wadiisan sama kamaad maxad ma kaygan weeday been baad ii sheegay maxad ma kaygan weeday kaasay doctorad yaabto fajacdo ama kaagto markaasay ku tiri miyaad geynaysaa oo meedaba la kalifayba ilaahay waa xilka waa laga qaado waa qof waxba la weydiinayninba ya ma kaad geynaysaa umrtii aan gareyn waxba kala gahaa buu yiri waxa iga dalbataba waan geynayaa ماشي قد البتبة وانجينية إن محاكل هذاي إن وحيت عشان يدي كرب تورنبا وانهور قصدي أيوه وحيت عشان أنا أودي كرا ما كورتوك سن بينه يدي سبحان الله بارني ماذا بلغ تابلي وصوش كذا في وحيتين ما كرم محد وكانت ماشي بكتوليو وحو كان ماشى إن الشكل ما بلغ شيء وحو كان وحنوسان صديق يدي كريم عام بلاد ما كان دوي حسوس ودوني لكن أيضا با دكتوردي لما يتبابا لفت عديو waxay la yaabtay ilmahani inan kani dhalinyaradiisii shabaabnimadiisii heerka baarnimadooda Soomaaliya wuxuu wax kastoon awoodi karo oo matqan ay rabto waan u sameeyay buu ku yiri marka waxay ka baxeen meeshii qolkii dhakhtarada ay ka baxeen abaaki bay xidhay دكتورد waxay oo himbaan qaracmay يعني وان oo inta qof oo kareebeen oo yeebtiri waayo ma waan maqli jiray waan aqaana barnimo la sameeyo qof loo bar sameeyo matqan waalid laakiin in dhalinyaro shabaab oo hooyadiisan ay garanayinba maba ma aqliga ma joogo qof soo joogo xiskiisu joogo oo matqanayay kala garanayo oo wax qofkan wuxuu yahay wax loo qabanayo kala garanayaaba bar sameeyay nacam laakiin qofkan aqligiba aanan joogin wuxuu awoodi karaa bay tiri inuu maxaan ku raahdaayeen iska daa inuu cagiisa lagu ku xulqdo oo matqana sare u ilaaliye waxa wadi kara inuu geeyo meelaha dadka aqliya ma dadka waalwaan lagu hayo qojeen majnuunka kale ayuu awoodi kara laha hadii kale wuxuu geyn lahaaba maxaan ku raahdaay meesha dadka waaweyn lagu keergaray lagu xanaanadeeyo buu geyn lahaaba laakiin wuxuu ka doorto ka jecelaystay inay abaaki jannada tahay inuu abaaka jannada iska xirin buu jecelaystay subhanallah saas waxa ku dhamaatay qisada inankaas hooyadii ilaahay ku imtixaanay hooyo waalan ayadu ismay waalina ilaahay baa u gartay ayana ilaahay wuxuu u sakharay inanka baariga maanta walad caaq ku noqonin inteeba hooyo joogta ama aabba jooga waladkiisii u dhalay uu soo koriyo soo tacbay markuu maanta da noqday ama markuu xanuun ku dhacay ama markay basaarad iyo saboolnimo ay soo food saartay aanan oranin halka joogtaana aanan dadna ka yeelanin ama loo bariyay ama inteeba maxaan ku raahdaayay gacan u la tagay inaga malaha Soomaalidu ku yartahay walillahi alxamdu laakiin tabada carabta meelaha midqadad dhigirgeysatid ilaahay soo hadeeyo way jira qaar xitaa gacanta u la tagay waalidkood way jira qaar dilo garaacay qaar kow ka siiba jira xitaa wal billah kuwaas qaarkood waxa kuna kood mukhadaraadka iyo matqanayay maandoorayaasha qaatay oo maskaxdiiba inay joogin is ogaan waxay sameeyaan waxan ka xoog badatay oo hadii la ku roon yahay doonay matqana wax lacag iyo waxun iibsado maskaxdii mu joogin ba goortaas waxa uu sameeyay wayna jiraan wayna badan yihiin laakiin waxa jira qaar kale maskaxdooda ay joogto aqligooda u joogo laakiin wax kale iyo matqana dabeecad kale iyo akhlaaq kale ay horseeday oo dumar ilaahay hadeeyay qaar baa jira dumarkooda ay xun yihiin oo ay ku dareen hooyadii inuu iska eriyo ama aabihii inuu eriyo oranay ma adkeysan karo ma xamilayo iga kaxeeyay iga eri way jiraan qaar fara badan qaar waxa jira inta magacaanka aabahood hooyadood dhimatay aabahood ay hayeen oo hooyadii marka aabihii ay gabadhii ay ninku qabay ay odagii karantimaysay oo weel maacun gooni oo wax ku cuno loo sameeyay oo la yiri halkaas uu soo dhaafin weelkiisas halkaa u ehkaado oo maantu dhintana aan xashir ku ridno way jiraan sheekh badan ka sheekeeyay horaan u dhageysanay taasoo kale qolaas asal ku dhacday odayga abiibu hayay saas qol maqsin kaligu joog jiray halkaas lagu hayn jiray markii dambe waxay tii maba adkeysan karane inaga kaxay odaygan maxuu soo kaxay odayga wuxuu aabo meel guri baan ku geynay buu masaajid meel u dhow oo inta waqti baad ku tukan kartid buu ku subhanallah balay hab kula soo garan galeystay
maadaama gabadhii timo adkaysan karo odaygan guriga uu joogin odaygii uu soo kaxeeyey maqsin buu uga kareeyey masaajid agtii buu uga kareeyey halkan buu u yidhi faraash yar iyo alaab yar u soo dhigay wuxuu u iman jiray maalin kastuu soo mari jiray markii hore carruurta yar uu soo kaxaystaa uu yimaadaa maxaad u baahan tahay uu ka tagaa maanta ma wiigu mar buu yimaadaa hadda marka dambe labadii wiigu mar buu yimaadaa uu tartiib suu socday ninkii waxaa lagu yidhi aabbihiiba wuuba iska iloobay maalin ay muddo ka soo wareegtay dee malaha sanad iyo siyaada ka soo wareegtay ayuunbuu mid yar u dhalay yidhi aabbo allah awowa mee awow maxaan beryaha ugu tagi weyn inbuu bareer allah odaygii ila waan iloobay waa ninka ku leh madaxa gacanta saaray waa ka cararay ee meeshii gurigii tegey gurigiiba abaaka garaacay ba ka furasay oo ninkii bakistaaniga masaajka eryada nadiifadii meesha ku xirnaa buu ku yidhi oday halkan joogay gurigan degana mee odaygii baa lagu yidhi imaamka weydiiyey loogu yeedho waxa lagu yidhi odayga soo timaha beri hore oo dhintay buu ee cid loo waayey ee cid loo garan waayey ee meel lagu hagagala waayey ee dadka muslimiintii muxsiniintii masaajidka imanaya ay ku takafureen aaskiisii kharashkiisii wixii ay qabteen markaasuu isku naxay maqsinkina ciddi buu may gelin maqsinka alaabtiisii wuxuu taalla ma geli karaa buu yidhi uu galay alaabtii aabii bustihiisii lixaafkiisii faraashkii rux meesha yaalla ayuu arkay weelkii maacuunka yaraaye lagu siinayay waxaan ku dhahdaa cuntada berigii dee ayuu arkay inankii wuxuu yidhi aabbo soo qaad buu alaabtaan tuuran ina soo qaad markaad weynaatid baan ku siinaa cuntada waa kamaa tudiinu tudaan waxaad maanta samaysid ayuu abaalkiisa helaysaa ya waalidka abaalkiisa cidnama gudi karto kiyoo caafimaad qaba iyo kiyoo bukaba kiyoo dhintay iyo kiyoo joogaba kiyoo kaa fogay kuwa ku dhowba cidma abaalka waalidka ma gudi kartee ilaahayna wuxuu isku xidhay raalihaashiisa iyo raalihaashaha maxaa waalidka وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا marka mujtamacina malaha way ku yartay dad faraha ula taga oo waadku sida u dila laakiin way jiraan qaar inta ka soo dhafan dib ugu noqon waaya qaar biil baxta u diri waaya way jiraan qaar badan oo la yiraahdo maxaan ku dhahdayay in saan sharci kama soo qaadano ilmaheeda hebel bay ga jeclaatay inta heblaay ga jeclaatay waxaan ka soo dad badan oo u fakaraan way jiraan laakiin waxa quraha xaqiiqada runta tahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala sab'a samaawaat korkeed inoo soo arkayo oo maqlayo oo arkayo qofkii xumaantiisa oo isagu bay ku qaladan tahay qofkii wanaagsan wanaagiisa isagu bay anfacaysaa waalid ad xumaysana adigu ummaas xumeeyay cidna ma xumaynin eegana Ilaahay abaalkoodu marinaya janadoodii adigana abaalkaaga wal marin doona ubadkaaga wax maanta waalidka bada sidoo baa adigan barta lagu badi doona marka akhawaati qisadasan la mushaarakeynayay waxaan jecelahay oo rajayn inaad u bogtiin oo ka faa'iideysatiin oo qof kasta xuquuq xaq ku leeyahay maaha qofkan haduu waalan yahay haduu qof yar yahay iyo haduu qof weyn yahay haduu wax ku yahay haduu wax ku hayn macnaheedu xaq kuma laha oo arxannimo kuma laha maaha macnaheedu waxa weyn irhamu fil ardi yarhamkum fis samaa in la isku naxariisto oo matqan la isku dulqaato oo la isku matqaanaayay samro ayay ku barasa waayo qofna mu soo ibsan xanuunkan jiradan dhibaatadaas kuma keenin qofka Soomaaliyeed inuu ugu fiican ahaado ayuu jeclaan lahaa koogu caafimaadka badan koogu arsaaqada badan koogu sharafta badan koogu ya farxada badan laakiin hada imtixaan baa la jooga daar imtixaan ninba meel bay ka naaqsan tahay marka waxa weeyaan haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof ku bado ama heer ku xeero ama si uu taqaanid narfo meel uu ka dhibaataysan aku diganin ayasin qiimo jabinin xumaynin adibin udulqaado oo u gargaar oo u maciin oo u naxariiso ilaahna ku naxariisanay ilaahad galan ku naxariisanaya meel aad ka filayna uu ku galnaya dadka caynkaas kulan aloon naxariisto oo wixii loo qaban karo loo qabto dadka meel kasta curiyaan cagaha indhaha lugaha dhagaha hadalka wax kastaba qofkii ilaahay u dhameystiran ay yiraahdaan alxamdulillah rabbil caalamiin وبالله التوفيق وحان خلدي نفتي دي الشيطان وحان صحنا إلهي توفيق وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده فضلك إلو من الشاركة يسسكرايبك إيو وحان كل هذا اللايك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.